Awadeel adduunkan wax kasto ka dhaca marka ka sii dambaysa waa waxaad ka yaabaysid. Dhacdo ka dhacday dalka Bangladesh waxa la sheegay nin fanaan ah oo magaciisa lagu magacaabo Hera Alam oo u dhashay wadanka Bangladesh ayaa waxa la sheegay in booliska dalkaasi ay qabteen kadibna ay xidheen oo laba waxyaabood ku eedeeyeen. labada waxyaabood midka koobaad waa inuu fool xun yahay oo san fanka u qalmin. sidoo kale qodobka labaad waxa weeye in uu markaasi cod balahayn oo codkiisu yahay zero oo meesha ugu hoysayso qof aadana ka heeso uu ka heeso. يعني waxay boolisku ku doodayaan qofkani umaba qalmo fan sidoo kale naqshashadaha ma soo hor istaagi karo. প্রথমে আমি ভালোবেসে তারে শুধু চাই জীবন সাথী ভাই বেটারে মনে দিছি ঠাই প্রথমে আমি ভালোবেসে তারে শুধু চাই জীবন সাথী ভাই বেটারে মনে arrinta la yaabka leh ee dhacday waxa weeye in fanaankani uu yahay fanaan ay ku xidhan yihiin 1.4 milyan oo ruux. waa dad aad u fara badan sidoo kale heesiisa mararka qaar waxa daawata malaayiin ruux oo markaasi dacallada dunida kala jooga. waxa lagu eedeynayaa in uu cod xun yahay sidoo kalena fool xun yahay labadaas qodobna uu isku darsaday. inkastoo dadka reer Bangladesh ay markaasi heesiisa ay aad u dhageystaan oo masraxiyada iyo sidoo kale meelaha aroosyada lagu qabanayo meelaha xafladaha lagu qabanayo looga yeero. waa nin noocaas ninka lagu magacaabo Hera Alam oo fanaan reer Bangladesh ah ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu soo eedeeyay cod xumo cajiib. arrinta la yaab kale waxay tahay in bartiisa YouTube-ka ay ku xidhan yihiin 1.4 milyan oo ruux. booliskuna waxay sheegeen inuusan lahayn codkiisa sidoo kale muuqaalkii fanaanimada sidaas awgeedna ay mamnuuc tahay in dadka hortiisa uu ka heeso. fanaanka oo isagu wuxuu sheegay am ku andacoonaya in codkiisa uu xor yahay. booliskuna waxay sheegeen inuu bulshada dhagahooda ayaguna xor yihiin oo aan la rabin qof markaasi wajigiisuna foji fan lahayn sidoo kale cod fan lahayn labadaba inuusan hor imaan karin oo de boolisku maadaama uu bulshada mas'uul ka yahay oo nabadoodii iyo xasiloonidoodii ilaaliyo. inkastoo boolisku waxa ku doodaya wax saxan aysan hayn markaasi qof bini aadan ah oo haystaba 1 milyan iyo 400 oo ruux in boolisku uu ku saqajaamo oo la yiraahdo codna ma haysid sidoo kalena fanka uma qolantid wajigaaguna xoogay waa liitaa. waa arrin la yaab leh wadanka Bangladesh bayna ka dhacday. booliska ayaana arrintaas ku faquuqay. warbaahinno kala duwan ayaa ka hadashay sida warbaahinta BBC-da oo saacadihii ugu dambeeyay falanqeynaysay. waa dhacdo la yaab leh. bal waxaad qiyaastaa Soomaaliya haday arrintan oo kale ka dhici lahayd fanaankeed u malayn lahayd. fanaaniin badan baa jira. fanaanka socdaal horta waa la kici lahaa. fanaanka socdaal waa la kici lahaa. halkana waan ka salaamnaa. waa nin dhalinyaro ah xoogay talent leh. arrintaas waa arrin la yaab leh oo ka dhacday dalka Bangladesh. waxay ku tusinaysaa in wadamada qaar ay arrimahoodu ay xasaasi yihiin. oo haysta dad aad u fara badan oo YouTube-ka ku taxan. heesaha qaar waxa daawanaya malaayiin, heesaha qaar dhowr boqol oo kun. dadka sawirada la galay baraha bulshada soo dhigaya waa kan xadad. yani waxay ku tusinaysaa inuu ninkaasi caan dhaleeyahay danka Bangladeshna caan ka yahay. waxa xusud mudan daawadeel sida muuqaalkan ka muuqata waqti hadda laga joogo 8 mise 9 maalmood ilaa 10 maalmood inuu duubo hees markaasi uu xabsi ku soo dhaxmetelayo isagoo background-ka dambe oo markaasi uu jeel wax ku jira camal iska dhigayo oo hees markaasi cajiib halkaas ka soo duubay. hadda se waxa xigtay in jeelka loo tuuray. inkastoo dad badan ay xuquuqda aadanaha u dooda oo dalka Bangladesh ku sugan ay arrintaasi ka hadleen. waxaan idin codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.